بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وإكرام محمد محمود هيركيك وحبرشده وباجلر بزنس ادمنستريشن BA waxaan ka baxay jaamacadda Sima waxaan ka shaqeeyaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybta adeegga macaamiisha shirkadda Hormuud waxaan u soo shaqeynayay muddo 7 sano ah aniga Qadar Cali Muuse kana mid ah shaqaalaha shirkadda Hormuud markii la soo bandhigay fursad shaqo oo examkii ardayda ku baastay oo ka mid noqotay shaqaalaha shirkadda Hormuud ka mid ah shirkadda Hormuud waxaan ka shaqeeyaa hadda 3 years qof kasta oo markuu jaamacadda dhameeyo caqabado waxa ku taagan goorma shaqo helaysaa inta shaqo helaysaa company Hormuud oo madcilna maadaama eedo shay baahida shaqo magacay waa Naciimo Xuseen Diblaawe waxaan ka mid ahaa shaqaalaha Hormuud waxbarashadeeda Bachelor of Islamic Bank and Finance labada sano ee la soo dhaafay waxaan ka shaqeynayay customer care-ka waxaan aad ugu faraxsanahay in macaamiisheena kala duwan aan u shaqeyno hadana hana baahda Hormuud Telecom bismillah magacayga waa Daahir Cali Xasan Maxamed kana tirsan shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud qof kastana oo dhalinyarada wuxuu ku hamiyaa inuu markuu wax barto shaqo fiican oo wanaagsan inuu macnaha helo sida shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo kale heerkan amaanta soo gaaro shirkadda isgaarsiinta Hormuud aan ku mahadsan inuu mahadcelinaya magacaygu waa Nidma Cabdiraxmaan Qaliif waxaan ka mid ahay shaqaalaha shirkadda Hormuud waxaan ka shaqeynayay ilaa 2 sano muddo 2 sano ka shaqeynaya magacaygu waa Fartuun Muuse Maxamuud heerkay waxbarasho waa Bachelor degree waxaan ka mid ahay howlwadeennada shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxaan ka shaqeeyaa qaybta adeegga macaamiisha waa ku faraxsanahay inaan u adeego customer kala duwan ee macaamiisha shirkadda Hormuud magacaygu waa Cabdiraxmaan Saxaaq Sahal waxaan ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud gaar ahaan qaybta customer service-ka Hormuud Telecom Soomaaliya waxay door weyn ka qaadatay inay ku dhiirigeliso dhalinyarada gudaha wax ku baratay iyo kuwa dibadda wax ku soo bartay intaba inay ka shaqeeyaan wadankooda